السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا wanaagsan dhammaan asxaabta nagu xiran guud ahaan muuqaalkan waxaan ku soo qaadan doonaa laba arrimood oo aan mid ka mid ah videogan kii ka horreeyay aan kaga hadalnay laakiin aad moodo in asxaabtu weli su'aalo dheeraad ah ka keenayaan iyo arrinta kale oo ah dadka dowladda Canada sheegtay inay dalkeeda ka saarayso soo dhawaada mar kale aan ku bilownay arrinta hakadka ku yimid group of 5ka Canada waxaan rabaa inaan si kooban isu kortaagno maadaama fasiraadaha laga bixinayo iyo su'aalaha dadku naga soo weydiinayaan badan yihiin tusaale hakad miyaa mise waxa nibaad maxaa hakadkan loo sababaynayaa goormee dib loo furayaa nooca dadka saamaynta ay ku yeelanayso iyo wixii lamid ah arrinta hakadka haddii aanu ku horumarno waxa ugu badan ee dadku isku khaldayaan ayaa ah kelmadaha pause iyo ban marka haddii aan ban soo qaadano waxa nibaad ama joojin guud ahaan program hore u socday mana aysan isticmaalin dowladda Canada kelmadan marnaba laakiin taas beddelkeeda waxa ay isticmaashay ayaa ah pause ama hakad hadba sidaad u taqaan taasoo micnaheedu yahay in dowladdu programkan hadda hakisay laakiin ku talagalku yahay inay mar kale dib u furto waxaana suuragal ah in dowladdu go'aanka dib u furista wax ka beddel ku samayso taasoo suuragelin karta in ka hor December 2025 uu furmo waxaa sidoo kale dhici karta inuu dib u dhac ku yimaado waa maxay sababta hakadka keentay ilaa iyo hadda ma jiro qodob sax ah oo dowladdu arrinkan u cuskatay laakiin sida dadka arrinkan u dhundaloola sheegayaan waa laba arrimood tan koowaad waa in dadka group of 5ka iyo communitygu overload noqdeen marka loo eego programyada ama fursadaha kale ee dadku inta badan Canada ku soo galaan tan labaad ee loo aanayn karo ayaa ah electionka ama doorashooyinka la filayo inay dalka ka qabsoomi doonaan dhammaadka sanadka cusub ee 2025 maadaama xisbiga liberalka ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaaraha hadda talada haya Justin Trudeau uu loolan adag kala dhaxeeyo xisbiga kale ee conservative-ka kaasoo ololaha doorashadiisu tahay inuu ka soo horjeedo immigrantska aadka u badan ee dowladdu qaabilaysay sanadihii ugu dambeeyay sidoo kale nooca dadka ay saamaynta ku yeelanayso haddii aanu soo koobno qof walba oo dokumentigiisu dowladda gaaray ama loo xareeyay saamayn arrintani kuma yeelan doonto taas beddelkeeda waxa uu saamayn ku yeelan doonaa qof walba oo aan dokumentigiisu weli xafiisyada dowladda gaarin dabcan waqtigu muhiim maaha waxaan uga jeedaa waxaa dhacda in marmarka qaar dadka sponsorka ah dokumentiga aysan dhaqso gudbinin oo laga yaabo inuu dhowr bilood agtiisa yaallo taas cagsigeeda waxaa dhici karta in adiga oo soo daahay haddana sponsorkaagu horey ka xareeyay dacwadaada si kastaba ha ahaatee arrintani waa mid ku xiran qofka sponsorka ku ah ee Canada jooga waxa kale oo muhiim ah dowladda Canada waqti sii horreeyay shaacisay temporary residents gaaraya 1.2 million inay ka saarayso dalkeeda sanadka fooday nagu soo haya ee 2025 haddaba waa kuma dadka dowladdu sheegtay inay dalkeeda ka saarayso waxa ka mid ah dadka invitationka dalka ku soo galay nooc walba oo uu yahayba sidoo kale dadka wadanka shaqada u yimid ama work permit-ka ku jooga ayaa ka mid ah waxa kale oo ka mid ah dadka waxbarashada u yimid ama waxa loo yaqaan study permit-ka ku jooga dadka xuduudaha ka soo galay kadibna isdhiibay ayaa ka mid ah waxa kale oo ka mid ah dad badan oo wadanka sifo sharci ah ku yimid laakiin dowladdu dabagal dheeraad ah oo ay samaysay ku ogaatay inay jiraan dad badan oo sameeyay fraudka ama deceptionka waxa loo yaqaan taasoo ka hor imaanaysa xadgudubna ku ah guud ahaan sharciyada immigrationka ee dowladda u yaala aan horey u sii siqnee waxaa jira dad badan oo muujinaya niyad jab kadib markii dowladdu hakisay group of 5ka laakiin immigration ahaan waxaa jira qaabab kala duwan oo aad Canada ugu socdaali karto ama ku tagi karto waa haddii aad buuxiso guud ahaan shuruudaha looga baahan yahay qofka programyadan xareysanaya sidaa darteed waxaan ka soo samayn doonaa muuqaalo filo goordhow insha Allah subscribe-ta like-ta iyo share-tu waa xageena sidoo kale wixii su'aal talo iyo tusaale ah qaybta hoose ee commentiga ayaad noogu reebi kartaa intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa walaalkiin Saacid Xaaji Aadan oo idin leh amaana Allah